بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ السلامي ولا ليك قالي أعمل والبأدون كتعلي دي سكجوكتان إي وقتي والبإذي تاوحارجينا أنا فرحتي عافمات قبطان إلهي دي سياديو أنت حنوصن يسأل الله عافية أنت عافمات قبطان لا سياديو ما أنتو حاينو وضع دونت آد أفضت ما شاء الله مركي أسميساني سيدان قروحدا بدن iyo inoogu soo baxay walaaleyga qaaliga ah soo dhawaada waa idin mahad celinaa sida quruxda badan ay igu xiran tihiin commentidiina quruxda badan jazaakumullahu khayran walaalaha qaaliga igu soo biiray soo dhawaada channelka waa channelkiina ugu horeyntii doonadkeena waxyaabaha aan ka sameysaneyno waa waxyaabo fudud si easy ah ayaan u sameysan doonaa insha Allah in badan waa layga soo codsaday laakiin maanta ayuu Ilaahay ii suura geliyay inaan idin la soo wadaago waxaa halkan iyaalo mashiinka cabitaanka la ku shiidaya aniga howl fududeynta la iska jeclahay halkan waxaan ku haystaa ukunta waxaan hadda gacanta ku hayaa waa 4 xabo oo ukun hadii ukunta kugu yar tahay 5 xabo waa ka dhiga kartaa hadii ukunta waa weyn tahayna 4 xabo waa ka dhiga kartaa 4 xabo ukunta ayaa soo jibinaya insha Allah mashiinka ku ridaya hal xabo ayaa u ridi doona insha Allah marka ukunta aan ku soo wada shubo mashiinka waxaan soo qaadanayaa blue band waxaan ku darsan doonaa insha Allah 2 qaando oo ah blue band qaandada cuntada lagu cuno ayaan ku soo cabiro doonaa biidnillaahi kariim marka sidaas aan ugu soo shubto insha Allah waxaan ku soo darsanayaa sokorta waxaan isticmaalaa insha Allah bakeeri aan zaid u buuxin oo adi halfna wax yar ka sareeyo iyo vanilla aan ku soo daray mashiinka cabitaanka ku soo shiidi doonaa insha Allah markii halahan isku soo shiidmaan waxaan ku dari doonaa insha Allah saliid cadeey bakeeri 3 loo qaybiyay ayaan ku dari doonaa maadaama burkaan isticmaalayo uu yahay 3 koob iyo hal bakeeri oo caano ayaan ku daray burka isticmaalaya waa nus kiilo ama 3 koob oo bur ayaa isticmaalaya insha Allah markii halahaas isku soo shiiday waxaan cabiranayaa burka 3 koob ayaan ka dhiganayaa insha Allah 3 koob ee burka ayaan soo cabiranayaa insha Allah hadaa rabtid kiilo halahan ayaa waxa ka dhigaysaa times 2 ama halahan oo double ayaa ka dhiganaysaa insha Allah hadda waxaan isticmaalayaa 3 koob ayaa isticmaalayaa oo bur 3 koob ee burka marka aan ku soo shubtay insha Allah waxaan ku darsanayaa baking powder qaandada teaspoonka oo ah baking powder ayaa ku darsanayaa waa 3 koob oo bur 4 xabo ukun bakeeri caano bakeeri halfkiis 3 bakeeri 3 loo dhigo oo saliid 2 qaando oo blue band vanilla ama heel waxa rabta isticmaali kartaa waxaan ku darsanayaa insha Allah qumbe waxaan ku darsanayaa hal qaando oo buuxdo oo qumbaha shiidan waxa kale oo aan ku darsan doonaa insha Allah marka halahan aan isku soo qaso qaleelka hal fur oo subag carfisan ka rabaa oo kaliya hadaa jeclan subaga waa iska dhaafi kartaa ukuntii iyo caanihii iyo saliidii blue band isku soo shiiday ayaan ku darayaa burkii waa isku qasi doonaa insha Allah markaan si fiican aan isugu qaso si uuna kuskus kaaga yeelanin si fiican aan u qasaa insha Allah kadibna waxaan ku darayaa hal fur ama qaandada teaspoonka oo ah subag si uu caraf iigu soo yeeshto masha Allah doonadka si fudud ay tusay insha Allah walaaleyga qaaliga gabdho badan ay iga soo codsadeen waxaan rajeynayaa inaad si fiican uga heli doontaan biidnillaahi kariim saakan waa iska hirgibsanahay xoogaa karaal noqda codkayga hadii uu xiran yahay sidaas ay isku qasi doonaa insha Allah walaaleyga qaaliga si fiican u qasaya waxba kaleeto uma baahno oo qoyaan kaleeto halihiisa ku filan waa isku qasaya insha Allah si uu kuskus u yeelanin oo smooth qurux badan oo kuugu soo noqdo ukuntii iyo wixii suuqay qasnaay ayaa in yar ugu soo kala dardarayay waa ku soo dhameeyay hadda masha Allah waa u jeedaan saas quruxda badan iyo inoogu soo baxay masha Allah markii aan qasto hore leh ka dubaya insha Allah waxba lama sii qameerinayo waxba lama sii dhigayo
maasha Allah ujeedaan diyaar waaye mashiinka aan isticmaalayno waa mashiinkii oo aan ku samaysan jiray slice-ka iyo wafelka ee ku samaysan jiray mashiinkan ayaa ahaa 4-in-1 wafelka midka oo strip-ka oo dheerka ah iyo midka sandwich-ka iyo wuxuu ahaa midkan oo donut-ka ah 4 xabo ayuu ka koobnaa midkana donut-ka ku samaystaa hadaa dhahdo kiilo waa ku sameynaya cabaar inaad tagnaatid waaye laakiin aan nus kiilo la ku dubaa intaas maalintaas ama iskuulka loo qaadanaya ama casri laga dhiganayo la ku sii dubaa insha Allah hada waqti haysid kiilada waa u fadhi kartaa 6 xabo markuu yahay laakiin 12 xabo ka jecelahay 12 xabo dhag hore ka siinaya laakiin midka kaleeto biscuit camal u soo saaraya ayaa ii ahaa 12 xabo maasha Allah walaaleyga qaaliga ah ugu dambeyntii waa ujeedaan donut-ka sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay golden-ka maasha Allah labada dhinac waa isku nuuc maasha Allah soft waaye sida cake oo kale ayuu soo baxay maasha Allah waa ujeedaan saas quruxda badan oo inoogu soo baxay maasha Allah hadii donut-ka aan ku wareersaneeda dhaxda cajiin oo kaaga noqonayo uu ku dhibaayay maasha Allah xalkiisa waa kana sidaan quruxda badan ayuu ku soo baxay sidaan u samayso waxaan rajeynayaa inaad si fiican uga hesheen waana idin mahad celinaa sida iigu xiran tihiin comment-yadiina quruxda badan jasaakumullahu khayran inta ku kulmi doona video kale. Assalaamu calaykum.